Everybody knows Minnesota is cold, but Minnesotans have a warm heart. And I asked them on the campaign trail for people to vote with their warm hearts, and that's exactly what we did. When people were selling the politics of fear and division and destruction, we were talking about hope. We were talking about the politics of joy. And tonight I think about one of my mentors, my sister, someone I had the honor of serving with, who embodies the politics of joy, Representative Erin Murphy. And when I saw her tonight, I said that politics of joy was contagious. It seeped into our soul, and it allowed us to use it as our North Star, to fight for the America we know we deserve. For an America where people have a right to see a doctor and not worry about going bankrupt. For an America where we don't have indigenous people living in tents like refugees in their own land. For an America that young people can still have their American dream fulfilled and not live in the despair of being shackled by student debt. For an America where we fight for a politics that centers working people. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u baaqayaa Soomaalidu meel kasta ay joogto oo kelmad aan jeclaystay inaan gaarsiiyo Soomaalida gudaha Soomaaliya iyo daafaha adduunyada joogta dhammaan. kelmaddaas waxa weeyaan kelmad ku saabsan gabadha Soomaaliyeed ee la Ilhaam Cumar ee Koongareeska Mareykanka ku biirtay hadda. gabadhaasoo runtii magac Soomaaliyeed wadata, magac Islaamna wadata, labaduba xagga maaragtay noo qaali innaga. Soomaaligu waa Muslim waana Soomaali. gabadhaasi markay maaragtay maanta astaantaha wadato qiimo badan bay ugu fadhidaa Soomaalida. maaha dadka Mareykanka joogo kaliya, Soomaalidu meel kastoo ay joogo qiimo gaar ugu fadhidaa. waxa weeyaan sida meediyaha adduunyada ku jirta waxa ka muuqata meel walba in la leeyahay gabadhii ugu horeysay maartay macaasigeedii iyo xijaabkeedii iyo la soo gashay Mareykanka weeyaan. gabadha kale ee muslimka Falastiiniyada iyadoo dabcan kolkaad eegto way ka yara duwan tahay oo timahay sayraysa sida gabdhaha reer Yurub bay u eg tahay. laakiin gabadhani waa gabadh Soomaaliyeed oo markaad eegto muuqeedu iyo sayid maartay dharka u sitaa waa sidii asalkii Soomaalida weeyaan. gabadhaas runtii Soomaalidu inay ku faanto weeyaan runtii oo la ilaaliyo. waxaan haddaba idiin sheegayaa Soomaalida meel kasta adduunyada joogta niman aad moodo inay iyagu yihiin afhayeenu yihiin Mareykanka iyo reer Yurub iyo Canada iyo wixii Kristan iyo gaalaba ah in iyagu afhayeenu yihiin oo muslimka la xaggooda una ka mari karin ayaa jira oo nimanka khaliijka hadda ka soo baxay inamada maartaan ilaa ina Sheekh Said iyo ina Salmaan iyo niman yar oo maartaan aabayaashooda ay xil saareen iyo badrool badan iyo lacag badan iyo balaayo kasta uga tagay, laakiin wax cilmiya iyo wax dadnimo iyo wax ixtiraam midna cidna u haynin. waxaan YouTube-ka aad ugu arkayay oo ku badan gabadhaas aflagaada loo geysanayo oo ay u geysanayaan ninka ina Sheekh Said la yiraahdo ee Maxamed la yiraahdo oo doonayay Soomaaliya inuu gacan lug weyn la soo galo oo laayo sida uu Liibiya oo kale u galay imka u leenayo Liibiya ama Yemen u leenayo ama wadamo badan oo Islaam ah oo gacanta ugu jira oo hadda Masar oo kale
inqilaabkii siisi ninka la dhahaa ay sameeyeen ee milyaarada uu ku bixiyey isagiina Salmaan bay ku bixiyeen nimankaasoo doonaya wax iyaga cagtooda hoos yimaada mooyaan cid kale inay jirin ayaa gabadha aflagaado ula soo baxay gabadhaasi anigu waan u ducaynaya waxa leeyahay Ilaahay xafido islaamnimadeena Allah ku xafido xilka ay ummadda u qabatay Soomaalida u qabatayna inuu Ilaahay maartay ku barakaysan uga dhigo waan u ducaynayaa waxaan iyada kula dardaarmayaa markasta inay islaamnimadeeda iyo wixii diinteedu farayso ayna cidna ugu jixin ee ay maartay ku adkaato sababta Ilaahay baa haybada bixiya Ilaahay bana haybada laga doonaa Ilaahay haybada ku siiyo hadii maartay axkaamtiisa ku toosnaato haybad baad heli doontaa kuwana waxaan leeyahay inanta waxay ku sheegayaan oo leeyihiin hatta aflagaadadu waxay gaadhay waa adoon inay leeyihiin Soomaalina waa adoomo marka waa adoon dhalay bay leeyihiin Soomaaliyeey weligeed Carabta Khaliijka lagu sheegayo inaga xoolaha u diri jirnay kolkii ayna batroolka haysan ay caydhaayeen sakadeena loo diri jiray xoolaheena loo diri jiray sadaqad baa loo diri jiray ka eegay YouTube-yada iyo taariikhda akhrista nimankii sida loo maartay xanaaneyn jiray Soomaalida ku dul noolaa maartay Soomaalida ay xanaaneyn jirtay ayaa maanta Soomaalida adooma ku sheegaya horta Soomaalida adoomana waa xor waxna u daliila gabadhaasi siday u maartay ugu maartay ilaashanayso dhaqankeeda iyo islaamnimadeeda reerka Carab la yiraahday uma ilaaliyaan dhaqankooda mar la markay Yurub tagaan hablahoodu dharkay daadiyaan timaha ay saydaan surwaalay qaataan wax maar diinta iska tagaan laakiin gabdhaha Soomaalidu saan aragnay ama ilaahan noqoto ama kuwa fara badan oo dawladaha jooga maanta noqotay diinta islaamka iyaga dadka bara ninka la yiraahdo Raashid al-Qanuushi oo Tunis ugu weyn ah oo xisbiga islaamiga ee hadal la yiraahdo ka madaxa ayaa Soomaalida u duceeyay bariyo hore oo 90nadii ah wuxuu yiri Soomaalida kolkay burbureen Ilaahay wuxuu ku fidhiyay caalamka inay diinta faafiyaan marka diintii laga xishoonayo Carabta iyo Hindida iyo Bakistaanta iyo Afrikaanka kale ka xishoonayeen iyaga Yurub oo dhan la dhaxmaray Canada la dhaxmaray Mareykan la dhaxmaray iyagoo dharkoodiisata ku tukanaya suuqyada ku tukanaya wax walba meel balban maraya sheekhaasi Qanuushi Maxamed Raashid Qanuushi uu duceeyay Soomaalida saas ugu ducaynaya ninkii damiir liwaarka iyo Soomaalidu umad nool inay tahay laakiin waxaan diin sheegayaa Soomaaliyeey waliba madaxda gobolada iyo dawladda ku sheegyada meelaha naanabayana waxay gacanta hoos haystaan kaacaya Soomaalidu waa adooma leh ayay gacanta hoos haystaan oo wadankooda u burburinayaan oo ummadooda u baabinayaan waxa diin sheegay gabadha inaad daafadaan meediyaha caalamka oo dhan gelisaan nimankaana aad amsaxa ka dhigtaan isagoo maanta mideysito iyo miishaaraysto suuqyada ku tukanaya wax walba meel balban maraya sheekhaasi Qanuushi Maxamed Raashid Qanuushi uu duceeyay Soomaalida saas ugu ducaynaya ninkii damiir liwaarka iyo Soomaalidu umad nool inay tahay laakiin waxaan diin sheegayaa Soomaaliyeey waliba madaxda gobolada iyo dawladda ku sheegyada meelaha naanabayana waxay gacanta hoos haystaan kaacaya Soomaalidu waa adooma leh ayay gacanta hoos haystaan oo wadankooda u burburinayaan oo ummadooda u baabinayaan waxa diin sheegay gabadha inaad daafadaan meediyaha caalamka oo dhan gelisaan nimankaana aad amsaxa ka dhigtaan isagoo maanta mideysito iyo miishaaraysto dadkoodii iyo wariyaashoodii googoynaya oo dadkoodii iyo culimadoodii googoynaya ayay inantaana soo aflagaadeen Soomaalina aflagaadeeyeen waa taata maanta ay u kaliftay inaan clipka yar soo qabto so that we can have an economy that works for all of us. For an America that believes in religious liberty. For an America that does not only welcome refugees and immigrants, but they send them to Washington. suuqyada ku tukanaya wax walba meel balban maraya sheekhaasi Qanuushi Maxamed Raashid Qanuushi uu duceeyay Soomaalida saas ugu ducaynaya ninkii damiir liwaarka iyo Soomaalidu umad nool inay tahay laakiin waxaan diin sheegayaa Soomaaliyeey waliba madaxda gobolada iyo dawladda ku sheegyada meelaha naanabayana waxay gacanta hoos haystaan kaacaya Soomaalidu waa adooma leh ayay gacanta hoos haystaan oo wadankooda u burburinayaan oo ummadooda u baabinayaan waxa diin sheegay gabadha inaad daafadaan meediyaha caalamka oo dhan gelisaan nimankaana aad amsaxa ka dhigtaan isagoo maanta mideysito iyo miishaaraysto dadkoodii iyo wariyaashoodii googoynaya oo dadkoodii iyo culimadoodii googoynaya ayay inantaana soo aflagaadeen Soomaalina aflagaadeeyeen waa taata maanta ay u kaliftay inaan clipka yar soo qabto so that we can have
For an America that believes in religious liberty. For an America that does not only welcome refugees and immigrants, but they send them to Washington.